maalin walbo xaqdaro iyo daadin dhiiga muslimiinta la daadinayo. Dulmiga iyo isdulmita ay bulshadu isdulmiso ay la fiirsado ay aan la qaban dhulumaatun yawma alqiyaamati, maalinka qiyaamaha wuxuu yidhi waa mugdiyo. Koox dhuljiif ah oo burcad ah oo bilaa akhlaaqa oo bilaa diin ah oo caadaysatay dhiiga dadka musaafirka ah. Odagaa waa oday dhaalim ah, waalidnimadii laga rabay muusan gudan, kama soo bixin, dhagaha ma la'a, indhaha ma la'a. waxaa la rabaa yay fadhinin xafiisyada iyo arkureeshinada tacadiga iyo dulmiga iyo qadofalka iyo akhlaaq xumada iyo systemka dowladnimada ay wadadii loogu talagala laga leexinaya ay marna xoolaha umada lagu dhacaya marna garaadadii dowladdu ay bixisay iyo gaadiidkeedii dowladii iyo shacabkii lagu dhibaataynaya inaan si cad u diid. sawirka nii muuqdo waa wiil kamida ciidamada dharcada ee hay'adda nabad sugidda. ilaalada gudoomiye Madaale waa markii labaad ay dil geysanayaan. uu is sheegay cid uu ka tirsan yahay cadeeyay, wuxuu yiri niman yahow hubka meelaha loogu talagalay ee la dhigayo ii sheega, bistooladeyda iguma aaminayo. kabacdina afar xaba ay ku dhifteen, kabacdina uu dhintay. gudoomiye Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ilaaladiisa waxaan dhahayaa warcagaha dhulka dhiga. war duqa sharaf uma aha, waxaad samaynaysaan duqay dhaawac ku tahay, sharaf xumay ku tahay. duqu waa duqi Muqdisho. dowladnimada ay waxay ku tahay foolxumo, amnigeena ay waxay ku tahay halis, wax sii soco kara ma aha. qolo dhul jiif ah oo si bareera umada u laysa. bismillaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. waxaa mahadlay allahu rabbul caalamiin oo naga dhigay bulsho muslima rumaysan afkaar iyo mawaadii. marka xigta dadka tabintayda ku xiran oo dulmiga ka heliya, cadaaladda u heliya, gardarada iyo tacadiga iyo gadofalka markaan ka digaynana garab siiya ayaan u mahad celinaya. waddankaynu iyo dowladnimada aan rabno ma dhowa. waxaa daliil u ah shalay iyo xalay waxyaabihii dalka ka dhacay. sawirka nii muuqdo waa wiil ka mida ciidamada dharcada ee hay'adda nabad sugidda. waxaa xalay lagu dilay aafaafka degmada Yaaqshid. waxaa halkaa ku sugnaa xilliga uu dilka dhacayay duqa Muqdisho Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir. waxaa dilka geystay ilaalada duqa Muqdisho ay aad moodo inay maalin walbo inay dhiig faraha la galaan, dad jecel inay yihiin. gudoomiyuhu hal sana ma jooga xafiiska. ilaalada gudoomiye Madaale waa markii labaad ay dil geysanayaan. shantaay ka hadli maayo. gudoomiyaha aniga waa gudoomiyahaygi. dadka gobolka Banaadir ee dowladda hoose tagay shakhsiga kaliya oo aan ka taageeray ama aan taageersanaha waaye. laakiin gudoomiyaha in si fudud qofka rabo oo u gaaro kama hadlaayo. ulajeedkayguna ma aha. gudoomiyaha cidda la kulmaysa inuu borosay soo maro, in la arko wuxuu damacsan yahay, wuxuu ka rabo in asaga la baaro, dhinac walba laga hubiyo ayaan ogolahay. laakiin dilkii xalay ka dhacay aafaafka degmada Yaaqshid wuxuu ku dhacay si dulmiya oo xaqdaro ah. wuxuu ahay dil ilaalada gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ay ka baaqsan karaan. hal miisaal baan keenaya. ninka wuxuu la soo baxay dhintay ee dhalinyarada ah ee dhikaarkiisii. wuu is sheegay cid uu ka tirsan yahay cadeeyay, wuxuu yiri niman yahow hubka meelaha loogu talagalay ee la dhigayo ii sheega, bistooladeyda iguma aaminayo. kabacdina afar xaba ay ku dhifteen, kabacdina uu dhintay. sawirka labaad ay nii muuqdo waa haweeney la yiraahdo lagu magacaabi jiray hooyo Aasiya Sheekh Yuusuf
subaxnimadii isniinta 8 subaxnimo dhibaatadii ka dhacday xarunta jaalasiyaad ayaa waxaa ku dhintay ay ku weysay iida iyo aabaheed iyo faamilkeeda walaalkeed cabdullaahi shuluq oo ah sawirka nii muuqda. hooyo aasiye sheekh yuusuf magaalada muqdisho ayay ka baxday iyada oo rabto faamilkeydii ay ka tirsaneyd inay dhibka la qaybsato janaasada walaalkeedna ay ka qayb gasho ayaa koox dhuljiif ah oo burcad ah oo bilaa akhlaaqa oo bilaa diin ah oo caadaysatay dhiiga dadka musaafirka marna inay dhiigooda banaystaan marna inay haweenka Soomaaliyeed ee jidka Baydhabo ilaa iyo magaalada Muqdisho baabuurta isticmaasha inay marna ay kufsadaan marna ay dahabka ka furtaan marna ay maaragtay gaadiidka ay saaran yihiin ay xabadaha ay ku furaan aan loo meeldayeynin ayaa risaas bareer ah ay ku fureen halkaas ay ku dhimatay. dhacdada saddexaad ee aan rabno inaan ka hadalno waxa weeyaan nabiguna sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay adh-dhulmu dhulumatun yawm al-qiyamati xadiisku waa marfuuc saxiixu muslimku ku yaala wuxuu leeyahay adh-dhulmu dhulmiga iyo isdulmita ay bulshadu isdulmiso ay la fiirsado ay aan la qaban dhulumatun yawm al-qiyamati maalinka qiyaamaha wuxuu yiri waa mugdiyo dowladnimada ay waxay ku tahay foolxumo amnigeena ay waxay ku tahay halis wax sii soco kara ma aha qolo dhul jiif ah oo si bareera umada u laysa gabadha muslimada ee hooyo aasiye sheekh yuusuf iyadoo damacsan meydka walaalkeed inay dhar saarto ay hubsato ayaa iyada iyo walaalkeed leesbar dhigay lees ag dhigay kelimada ugu dambaysa waxaan rabnaa inaan dulmiga ka digno waxaan rabnaa ummaddu inay cadaalad hesho waxaan rabnaa tacadiga iyo dulmiga iyo qadofalka iyo akhlaaq xumada iyo systemka dowladnimada ay wadadii loogu talagala laga leexinaya ay marna xoolaha ummadda lagu dhacaya marna garaadadii dowladdu ay bixisay iyo gaadiidkeedii dowladii iyo shacabkii lagu dhibaataynaya inaan si cad u diidno. waxaa kaloo rabnaa inaan ka hadalno sawirka nii muuqdo waa macalin aways waa macalinka ku dhimanayay waa beri oo madfaca iyo hoobiyaashii degmada waa beri lagu qaraacayay sababsaday asaga iyo 4 caruur oo dhalay waxyaabaha la yaabka waxa kamid ah dalkaynu ma dhawa maalin walba moojado Allahu rabbul alamin oo raali ka ahayn ay agoonka kii nabigu sallallahu alayhi wasallam uu yiri madaxa loo salaaxo hala gacan qabto waxa la siiyo dhaxdiina yaa lagu dulminin ayaa maalin walba dadka dhaxdayna lagu dulmiyaa gabadha muslimada waxa dulmiyay caruurteydii abkowgii caruurteydii ayaa dulmiyay lacagtii lagu helay wiilkiisii dhimashadiisii ay gabadhan ay xaq u lahayd iyo caruurteydii ayuu asaga keligii jeebka ku shubtay gabadhii guriga ka soo saaray biilkii uu ka goostay waxa wax la aqbali kara maaha ninka degmada waa biri uu degan yahay degmada waa biri maamul baa ka jira waxaan rabnaa inay hooshooda qabsadaan dhagaha malaa indhaha malaa waxa la rabaa yay fadhinin xafiisyada iyo arkureeshinade inay ummadda dadka noocaas ay u yeeraan xuquuqda lagu leeyahay in laga celiyo odaga waa oday dhaalim ah waalidnimada laga rabay muusan gudan kama soo bixin bishii uu ku dhintay ayaa lagu jira sidaan u malaynayo ma dhici karto marka in gabadhiyo cabashaa iyo caruurtaydiyo dayacan inay ummadda Soomaaliyeed ee hor timaado lacagta lagu wareejiyay oo loogu soo gurmaday inta akoonadiisu ku dhacdo war kama hayno inta lagu wareejiyay lacag dhan $10,000 waay qofka ugu horeeyay oo u gurmadane abwaan guuro aha ilaahay cimriga uu barakeeyo acmaashana Allah ka aqbalo waxa raba marka wadan dowladnimadaynu ma dhawa maalin walbo xaqdaro
iyo daadin dhiiga muslimiinta la daadinayo oo la fudaydsanaya ayaan ku jirnaa. gudoomiye Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ilaaladiisa waxaan dhahayaa war cagaha dhulka dhiga. war duqa sharaf uma aha. waxaad samaynaysaan duqay dhaawac ku tahay, sharaf xumay ku tahay. duqu waa duqi Muqdisho, ummadoo dhan ayuu gudoomiye u yahay, ummadoo dhan oo madax u yahay, ummadda dhan oo duq u yahay. waa duqi caasimadda Soomaaliya. walaalayaalow cagaha dhulka dhiga. dhiigaan aad maalin walba gacmaha kula jirtaan joojiya. ogaada ruuxa muslimka dhiigiisu ma sahlana. allahu rabbulcaalamiin wuxuu daba dhigay ashirku billaah, allow loo shariig yeelo, allah iyo addoommadiisa wax layskugu daro, xaq ilaahay leeyahow la soo leexiyo oo meel kale la geeyo ayuu ag dhigay. ha layska ilaaliyo. waa qaylo dheer baan ku oranayaa. asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.